sidee ayaad noloshaada go'aan doqonnimo ah ugu burburin kartaa lacagta iyo caanimadu qofka ma u keeni kartaa farxad ma siin kartaa Justin Bieber waxa uu galay dambiye ka dhan ah amniga magaalada gaarigiisa ayuu xoog ku waday oo uu dhaafiyay tankii loogu talagalay ciidamaduna waa ay istaajiyeen show uu qabanayay ayaa uu dadkii ku xanaaqay oo la dagaalamay maxay tahay xaqiiqada mugdiga ah ee uu dadka ka qarinayay Justin Bieber arrintu way ugu adkay ma garanayn waxa aan sameeyo iyo meesha aan aado dhammaan dadku waxay ii sheegayeen inay jecel yihiin bal sidaan gadaashayda u fiiriyo waxaan doonayaa inaan dhammaantood eego waan jecelahay iyaga waxay igu tuureen cidina kuma aysan korin kumana barbaarin duruufta uu ku soo barbaaray Justin Bieber ilaa waqtigu soo qaangaarayay ilaa hadda wuxuu ka mid ahaa dadka loogu baaris badan yahay magaciisa Google-ka dhexdiisa isaga oo ku sugnaa xaalad filan waa iyo ficilo xanaaqiisa soo dadajinaya sidee bay u bedeshay gabar ka mid ah taageerayaashiisa noloshiisana si kama dambaysa ay u bedeshay labada waalid ee dhalay Justin Bieber waxay ahaayeen laba qof oo yar oo aan saas u da'weynayn markii ay dhalayeen wuxuu yiri ma aysan ahayn qoyskaygu mid haysata maal waxayna xaaladoodu iska ahayd mid iska caadi sida qoysasku ahaayeen oo kale Justin Bieber markii uu yaraaba waxa uu u jeestay inuu heesaha ayuu jeclaa markuu gaaray sanadkii 13aad ee cimrigiisana waxa uu lahaa malaayiin dad oo taageerayaal u ah kana hela heesaha uu qaado Justin wuxuu bartay gabar Hailey la yiraahdo gabadhaasi oo taageerayaashiisa kamid ahayd aad ay isugu soo dhawaadeen waxayna markii dambeba noqotayba mid ay jacayl isku qaadaan oo sheeko jacayli ay dhex marto walina markaas waxa uu xiriir la lahaa gabadha la yiraahdo Selena Gomez mid kamid ah ee safaradii uu caalamka ku marayay iyo showyadiisii ayaa ay wax walba ku baaba'een marka aad majaalkan ama fadnigan aad ku yartahay ama da'daadu ku yartahay ama ku cusub tahay waa arrin khatarteeda leh maxaa yeelay dadku waxay ka faa'iideysanayaan meelaha aad daciifka ka tahay maadaama uu Justin Bieber ku hareereysnaa dad isaga aad uga waaweyn ayaa waxa uu doonayay inuu isagu dadkaasi ka soo dhex muuqdo balse waxa uu qaaday wada khaldan oo burburin gaartayba majaalkiisan fanaanimada Justin Bieber baa xaflad hebel asagoo wax lagu tooray dadkii ku xanaaqay Justin Bieber baa darbiyada wax ku qoray Justin Bieber baa foodo ka sameeyay xaflad uu qabanayay gaarigii uu xoog u waday waxyaabahaas oo dhan waxay ahaayeen waxyaabo murug badan oo Justin soo maray maadaama wiil yar oo fanigan ku cusub uu ahaa dad waaweyn ku dhex jira waxa kale oo soo yartay inay kala tageen gabadhii la oran jiray Selena Gomez oo ay kala dhaqaajiyeen waan tagay muddadii adkayd ee uu ku jiray Justin Bieber ee uu nolosha adag marayay ayaa ay Hailey waxay ogaatay shakhsiyadda dhabta ah ee uu leeyahay Justin Bieber waxa ay si degdeg ah isku bedeshay xiriirkoodii saaxiibtinimadu mid jacayl iyo romansinimo ka buuxdo Justin waxaan garanayaa muddo aad u dheer haddaan xaqiiqada sheego waa qofkii ugu horreeyay aan dhankiisa ka dareemo dhab ah oo jacayl balse waxay timid waqti dambe ay timid qofta la yiraahdo Hailey waayo Justin waxa uu galay xaalad murugo oo aad u daran naftiisana kuma uusan kalsoonayn maadaama xabiibtiisii hore ay ka tagtay waxay murugadu sii siyaadaba maalinta ka dambaysa heer waxa uu gaaray uu naftiisaba khatar ku noqdo muuqaalkiisa ayaa laga dhadhansanayay xaaladda uu ku jiro oo marayo waxa uu yiri waxa aan ahaa wiil dhalinyaro ah oo markaas soo qaangaaraya kaamiradahuna ay 24 saac daba taagan yihiin waxay diiday Hailey inay ka tagto xaaladaas uu ku sugan yahay Justin oo uu mustaqbalkiisuna burburo iyada garab qabatay istaagtay badbaadisay naftiisana u soo celisay kalsoonidii uu ku qabay noloshana ka tusisay dhadhanka ay leedahay waxa ay ku tashadeen waana ku gaareen inay iskursadaan Justin waxa uu raadin jiray nolol deganaansho leh balse ma uusan ogeyn in saaxiibtiisa uu ka heli lahaa deganaanshaha oo muddo badan ayay garabkiisa joogtay waxa ay ballan kula gashay inuu hagaajin doono khaladaadkiisa oo noqdo ninkii u qalmay Hailey mas'uuliyadu aad bay u culays badan tahay waa mararka qaar waxa dhici karta marka mas'uuliyad qaadin oo intaas stage ah soo ka soo hormuuqatay in adigana aad dhibaato isku soo jeedatid mararka qaar kood markii aad xakameyn weydo ficiladaada iyo dareenada waxa uu go'aansaday Justin Bieber inuu noloshiisa hagaajiyo jirkiisii uu usan danayn jirin oo markuu xaaladda adag ku jirayna uu cilaajiyo oo uu raadiyo badqab waxa uu kula hadlay dadkiisa ama jamaahiirtiisa Instagram-ka isagoo leh waan idin jeclaa laakiinse muddo badan is arki mayno waxaan go'aansaday inaan caafimaad iyo cilaaj aan raadiyo isdaaweyn badan kadib waxa uu tusiyay Hailey inuu yahay ninkii u qalmay inuu iyada nolol la qaato waxa uu ka yimid dhinaca kale oo iga fog waxa uu soo maray mugdiyaal fara badan ayuu soo dhex maray kadib ayuu soo gaaray wuxuu soo maray qiso xanuun badan oo uu inooga sheekeyn karo waqtigaas ayuu bilaabay inuu mar kale noloshiisa dib u soo cusboonaysiiyo Justin Bieber bilowgiisii hore ma uusan haysan qoys jiheeya iyo qof uu
dhibaatooyinkiisa u sheegto talooyin siiya ugu dambeyn waxa uu awooday inuu guursado Hailey noloshiisana ay u badbaado noloshaydu waa mid soo hagaagaysa marba marka ka dambaysa aniga iyo Hailey hadda waxaan ku noolahay nolol aad u farxad badan waxaan joogteeyaa qawaaniinta aan u dejinay si aan nolosha isbedel weyn u samayno waxaan u ahaan doonaa aabe hooyo walaal iyo saaxiib ay ku dhaadato Hailey Justin waxa uu noo xaqiijiyay in khaladaadka la galo ay waajib tahay qofku inuu mas'uuliyadeeda qaado hadda waxaan aad u garanayaa waxa aan samayn doono ficilka aan ku dhaqaaqi doono maadaama aan ahay fanaan qoraa haas iyo qof bini aadan ahba si aan muuqaalo badan oo noocan oo kale ah idinku soo sameeyo ha ila dhaafin subscribe like follow iyo share waa Cabdullaahi Cabdikariin Khaliif oo idin leh nabad galiyo salaam markasta